تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحاد. واتو شيخ مكاوي halkan idinka sheegaya aan waxaan idin kula talinaya ragga odayaasha 80 jirka qaarkood ay gaadheen ee baashan ku soo daalay ka dhaqaaqay idinka waramay taladooda qaad laakiin maanta nin firfircoon oo nashiid oo ay u cusubtay xarakadu ha ku dagmino waxa ka arag ragga faraha kaga soo gubtay warkooda qaad makaawaki halkan ka yiri habeenada kamida 30 sanadood baan ku soo jirro dawladuna ala alhawa dawlad hawada ka dhisan baan ayaanu gabigaygu ahay ilaa in madaxweynihii bay leeyihiin ku xigeenkii bay leeyihiin golihii shuurada kii fulinta barasaabka magaalada ma ku kala iyaga u qaabilsan gobol walba waxa weeyaan usarkii makaatibtii waa dawlad ka hoos dhis ilaahay waxa uu yiri atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun أهل الكتاب بلغوا عناني مسلمين تو هذي إيجو دتكي وناقة فرعية كل عمل فلي ويان مياني كده بقمين أتأمرون الناس بالبر سواء أهل الكتاب بلغوا لها هذي يا كده بقم صاصوما هذا بقى كوي سمعنا وعصينا هرؤوا يدي وحلمد وإيجونا سمعنا وعصينا يدي يعني كفر يقال لما كجمد ما هو مسلمين كون هو سنة قال هاي لكن وحين كهد لينا وفك مسلم كأ هذو معاصي يا أعماشي قال هذا وحلمد سمايو نصوص دي كوا لها هذي سجنا ولا هذا مركا أحزابته يورورادو markay sameeyeen ahzaab tira badan oo ay ku kaaftoomi waayeen jamaacadii islaamiga ahayd ee kaliga ahayd ee asaaskeeda nabi maxamed u dhagaxeeda buddiga u haya u dhigay taa markay ku kaaftoomi waayeen ee nin walba uu tobanaan ahzaab samaystay ee samicna wa asayna weeyaan xalku waanu maqalay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu waanu sa'aasinay oo fariiqooyinkan ka maarmi mayno waa daahira saxiix qaar baaba ku magacaabay waa muuqaal caafimaad xagu caafimaadku jooga waa cudurka umada halka dhigay ee ilaa maanta ay ka dhaqaaqilada ala kulli kumay kaaftoomin madaxweynihii umada u talinayay dadka ka dhaxeeyay inagu halkan aynu joogno ee madaxweynaha inoo taliya ma amiir kale oo inooga hooseeya jiro inuu ka mar qaadano telefiinta amiir hoose malo khafi ah iyaguse kanna waxa weeyaan muuqaalka guud dadkii uu wada xukumaayo ee waxa la iska dhigayaa inuu iyaguna ay ka mar qaadanayaan oo samciyo taaca u leeyahay waxa se u dheero u hooseeyo khafi ah amiirka qarsoon in la aqoon waa kuwan ku magacaabay umaraa al-kuhufi wal jibal kuwa godadka iyo buuraha macna waxaan u jeedaa amiirkiiba haduu khafi yahay been baa la isku sheegayaa halku madaxweyne ka yahay madaxweynuhu waa ka ummadu ay ku kulantay u taliyeen muuqda la arkayo ma hamid khafi oo qarsoon marka kaasa umada ka dhaxeeya laakiin umaradan yare laga hoos samaystay iyo dawladda ka hoos samaysani de sharci iyo aqli toona ma ah waatu sheekh makaawi halkan idinka sheegaya aan waxaan idin kula talinaya ragga odayaasha 80 jirka qaarkood ay gaadheen ee baashan ku soo daalay ka dhaqaaqay idinka waramay taladooda qaad laakiin maanta nin firfircoon oo nashiid oo ay u cusubtay xarakadu ha ku dagmino waxa ka arag ragga faraha kaga soo gubtay warkooda qaad makaawi halkan ka yiri habeenada kamida 30 sanadood baan ku soo jirro dawladuna ala alhawa dawlad hawada ka dhisan baan ayaanu gabigaygu ahay ilaa in madaxweynihii bay leeyihiin ku xigeenkii bay leeyihiin golihii shuurada kii fulinta barasaabka magaalada ma ku kala iyaga u qaabilsan gobol walba waxa weeyaan usarkii makaatibtii waa dawlad ka hoos dhisan ee xarakaad ninkii soo maray uu garanaya idan xaqiiqadu waxa ay tahay maamulka guud ayaa salafiyiintu ku kaaftoomeen oo maamul kale ugama hooseeyo isagaanu maqlanaa una deecana iyaguse waxa weeyaan kuwa hoose oo khafi ah ayaa ay la yimaadeen xataa barkood markay xukuumaadka galaan xukuumaddu ka tirsan yahay madaxweynaha u talinaya ee xukuumadda maamulana madaxweynuhu u yahay mid kalena uu uga hooseeyaa oo madaxweynaha aanu warbowhay ilaa waa baatil hadda isagoo golihii kamida ayaa madaxweynaha la yaqaan ma aha mid kale uu ka amar qaata hatta arimaha noocaasa nooc nifaaqa soo galaya qofkii inuu dadkina u muujiyo in madaxweynuhu uu taliyo wax kale aanay uga hooseyn xaqiiqa ahaan dawladan daahirka ah tu kale damiir mustatirina inay u hooseyso waa ayaan dar marka xaqiiqatan waxaan uga jeedaa nimanka jamaacad iyo xarakaadku kumay kaaftoomin wixii umada ka dhaxeeyay la yaqaan laakiin waxba uga hooseeya sababtuna waxa ay tahay de muraad bay leeyihiin halka ninkani fadhiyay de doonayaan ay ku socdaan si ay ku gaadhaanba marka wax yar oo kale waa inay sameystaan laakiin wadaadka salafigi isagu wuxuu ku qanacsan yahay oo aaminsan yahay ninka halka fadhiya in isaga la saxo oo wixii saxana lagu taageero wixii ka qaldanna loo saxo sharcigana la yiraahdo isaga nagu maamul laakiin iyaga kaciyagu ma raba laakiin ninkan kale isagu markuu leeyahay sharciga waa la isku xukumo khilaafada waa in la soo celiyo waxa ugu hoos asturan damiir baaris iyo mustatir baa kala jireen baariskuna waxa weeyaan waa sharciga la soo celiyo mustatirkuna waxa weeyaan anu aan soo celiyo aan ku xukumo oo ku fadhiis haduu kaasiidana ku xukumaya uma cunamayso uma qalad taaba rimahu idha jamacna takassuran wa idha iftaraqna takassarat ahad haqiiqatan waxa shaacirkaasi la warmo markay kulmaan ay isu tagaan ma jabaan laakiin marka la kala geeyay xabad loo kala qaado mid walba aayar ayaa dhac laga maanta umada islaamka nin walba waxa cid la waraabuhu ugu cunay markii jamaacaad iyo xarakaad dhexdooda laga sameeyay gaaladuna taasay doonaysay u saciiday kuna faraxsan tahay